السلام عليكم دمان داودايش دون دعلده كنول waa group roqoyd la kiya hal he maanta asxaabta qaaliga burgaraamada ka duwanayaan inoo haya waxaan ku hadlaynaa BK iyo showgii Nairobi iyo markuu Soomaaliland ku soo noqday iyo hadaladu yiri iyo maxay ahaaytay wixii lagu sameeyay iyo cawaalo ku dhiisa oo Facebook qaar ugu qorqoreen no cawaalo bimaka oo isna muuqaal dheer ka soo qoray ها مقال دير كسوقري هذا بقى يكون بلونه بيك السيد ودوقنا وحو كتغي شمال لا وحو تغي نيروبي شو هو قبصدو وميل يلو واكو قبصانيا وكا كلا كعا maxay haytay waxa la yiri doqonta 10 taaka laga guuray 10 geedi baa laga guuray bale wuu ka guuray wuxuu tagay meel Kenyaatu way leeyihiin iyo hotel Kenyaatu leeyihiin buu aado xaqaas uu showgiisa ku qabso waa looga daba tagay waa laga kala kicay haddaba waxa soo dhana maxaa ka runa maxaa ka been si wuxuu jiraan halka la kula wadaagaya marka koobaad BK وفنان فنان waxa lagu yaqaan ama warta lagu yaqaan inuu intii luqad garanayso u hesho hadaba waayahay BK maxaa ka yeelsiiyay xamar aniga hayga maqnaato Soomaalida inta kale mihal doorar haday siiyaan waa enaf maxaa ka yeelsiiyay waxa ka yeelsiiyay reer magaalada hadda socota أنا غير مجال لماذا وحنا واقعنا ما خير من لماذا مركز تندافته قف كنت لوك تسكيك هتاجو ويسكبني مركز تنادك سودية خسرنا إحنا قلنا يعني كل عاي هذا سجل لوك تسكيك هتاجي وقت وما خير من لماذا قدام بيسمي وقت ونج ودين شركاوي الصبر الله حكم ماذا حاس لماذا وحيو بهانت الشقة من سلسلة ديدني وما حاس لماذا وشقي كاجا بهانت shaqada aad qabato intaad ka shaqeyso in ka badan ay kaga baahan hebel been la googoynaa maxaan u sameynaa alkeen marna alkan tag kan kala tag la dhamaad la googo la ridqi ayay xasnimadu leedahay oo shaqay kaga baahan Soomaalida kuma maad hadaba waayahay marka koobaad yaa waxa sameeyay laba cudur daday hayaan cudurka koowaad oo Somaliland fanaanka Somaliland buu ka yimi waana go'aysa Somaliland wuxuu meelahaas ka heesaydaa Somaliland baa wanaagsan ilaahda ama Ingiriis buu heesay hadaan heesay Somaliland heesay hada ma Ingiriis buu heesay Soomaalish ku dhashay ma hay Somali waa la wadayaa شار كنا كم مراتين سنة سومالي أيضا كان نحن كم مراتين أنا مش يجي ضد كونكسن مش يجي واحد بفهم سنة قرات كلام مش يجي سومالي ما أنت إن أنا هرت هيدا أنا إن سومالي اللي قدرين وواحد كيف هيندي ونن يوغندي سامت توبيان أما إنجليزي إن أنا هرت هيدا قدرين دي وواحد كيف هينو سومال مركب الدقيقة كعية وح يقصوا كعية دينا نكن ولا نهاية الصومال نهاية شارك الصومال هذا بكبح ولا ودي حريه شاركا صور ما كراها صدقك واحد اسمها هي والقول بعض سوق بتهلو كلا بحاطي وحلا اسمها هي قضية دبا قضية dadka siyaasiyiinta waa inuu dirsanooyga isku haysanayo iyaga hawlahooda dhamaysanay maxaa fanaaniinta soo dhaxliyada mashtaal fanaaniinta waxa soo dhaxliyay shicibka cudurkan dadkan warka daawada warka iska daayay darula marka warka daawada waayo waxa arkaysaa reerkii la dhamaanayo reerkii la googayo marka waxa aragto baxam iska qabanaya xanuun nafsaaniyeed aduu habeenkii gimiis hurdo isma haybsanaysaan caafimaad caadi kuma nool marka suuqa maraysan waxa tahay feras soconaya baad qofka isla taagto waxaad ku dhacaysaa feraska xalay aad warka daawto reerkiina wala la dhamaaday qoladaas ay la dhamaatay iyo maxay tahay meel hebla goosanaysa wax feraskaas ma dhacaysaa gabigaaga
cuntada waad cunaysaa waad noosho xay waata xitaa salaa cibaadada kama gudan karaysid waayo faraskaas intu ku hayo waa faras kama xoog weyn ba dadka qalbiyadooda kama gudan karta cibaadada haddaba midda meesha taalla waxa weeye dadka showga burburinaya waa dad xanuunkaas hayo xanuunkaa ah qabyaalad maxay hayto siyaasad labadaa xamay hayaan qabyaalad iyo siyaasad ay hayso siyaasadda ma wax sakran baa utaqaanaa siyaasad baaba lagu yiri miyaa lagu qariy waa ku siyaasadeynaya waa kula dhigaya waa kula gogaya waa layidhi siyaasadda lagumaba qarin ba iyada shaarba looma xidhin qabyaaladna waxay tabar garan waxa Soomaali xadda ay ka deglaaday way intaa waa isla garanaa intaa haddaynu isla garanay biike miyuu khaldan miyuu saxayn biike boqolkiiba 7 wuu saxayn boqolkiiba 30 waa qaldan waa aniga aragtayda boqolkiiba 7 wuxuu ku saxayn haddaad maanta dalkayga igu timaado oo ku dhahdo showga aad qabanaysa calankayga aad hoggaanaysaa oo caynkanaad anaad waxalanaysaa haddii kale kuma qabanaysid adeer sakaaro qorqabasho biyo kuma cabto sakaaro qorqabasho biyo kuma cabto haddaan isnaha khasab wax ku sii war wiil waal baa ka warramay rag waday oo walaal waxay ku dhaanto oo ku xukumi kar waayo walaal waxay ku dhaanto oo ku xukumi karo qof aad leedahay showga aad qabsanayso waa inaan anigu ii daba fadhiisataa waa inaan calan calankayga garbaha kaa saaraa waa inaad caynkan ii haataa aada leedahay soo xorriyadiisa ma laho oo hadhowna dadkaad la maragsanaysaa markuu idhaho warneet ana waxba qaban mayne dadkaad la maragsanaysaa waa cunsuri waa caynkan waxaa cunsuriya qofka waxaasi marka hore ay kasoo maaxayaan niyadiisa iyo caqligiisa qofka waxaasi kasoo maaxayaan ee saa fanaaniinta ula dhaqmaya ee fanaaniintii kala qoys ka dhigay ee meelo ku kala xidhaya ee odhanaya annaga halkayga ma iman kartaan ciyaal xaafad baanu halkanaanu degan rag waaweyn oo golle oo raggi dunida lagu aamin lahaa baa ayaa waxaa sameynayo isu haysteen yareeriin ciyaal yihiin isku haysta waayahay biikii horta taa uu ku saxan yahay qofku wuxuu diidi karaa waa xorriyadiisa isagaa waxbuu diidi karaa waxba kuu qaban maayo waxba waan qabanaya iyo waan qabanaya labadaba isagaa xorriyadiisa si wuxuu doonaya haddii wuxuu dhici waana inuu iskaga yimaado isagaa xorriyadiisa taa uu ku saxan hal qalad baan ugu hayaa oo uu leeyahay aniga xamar hayga maqnaan marka koowaad xamar iyo Soomaali xagga inaga xigta ee koonfur mayay wada xun yihiin oo wada dhintirba ma aha ma dad wada xun baa may dad baa ku jira ilaahooda garanayo siyaasad garanayo waxba garanayo aan xumaan garanayo oo biika jecelo daawado oo miya caawa loola kara caawa heestu biika soo geliyo xamar isagoo kelmadaa yidhi caawa hadduu hees soo geliyo xamar qof kuma daawan miyaa loola karaa no inta maangaabkaa baan daawanay ee ereyadiisa marka lugta la iskaga taagay deedna uu qayliyey lasoo wada eegay maqashay ayaan daawanay sidaad garti maaha bal hadba xaasidku waxaa la yidhi ninkii walba saa ii dili jirow annagoo u darsanayaa dibindaabyadaadi bal waxaad dareemaysaa qofku xaasidnimada uu sameeyo ama qofka la xaasidaa uu kasii macaashaa un sii baldaba bii ka eeg hargeysa intaa kusoo dhaweysay malyiimaan show yaroo ay waxay boqolaal soo gelayaanba sheekinka waxaan la hadlaya dadka xun lama hadlayo Soomaalida wanaagsan lama hadlayo yaa xanuunka idinkan idinku keen maxaad samayseen maxaad miyaa waa kana khasaare usoo hoyseen si faa'iido waxaan arkaa faa'iido fara badan inaan ninkan usoo hoyseen dadkiisina ay ku baraarugeen isagaa ninkan laxmadiisa diyaarsaday hanti qaran khaamihiisa jiniyihiisa cidna waxaysa ugu daba fadhiisan qofku hadduu wax iska dhigo haadhe in maasha allah aad tiraahdo wax ugu darto oo waxaad karaankaaga ugu taban taabisan mooyaane inaad ka daba taahdaa waa xaaraam xalay waa nooca xaasidnimada lagu yaqaano weliba xaasidnimada xanuun kasii xun baa jira xaqdi la idhaaho xaqdiga
ayaa ku haya haddaad aragto walaalkaa haafeen cunaya aad tira hayaay suuqa beriska cad cuni jirin maanta waxaa haafeen cunaya waxaasi waa xanuunada xaqdigaa wey. haddaba taasi waa halkaa oo biikeena soddonkaas u qalday 70 kale uu ku saxay soddonka qaladkiisana weliba waxaa ka keenay kuleysiga iyo qajroofada iyo taaha socday hooska gurxanka ayada Soomaaliya dareemi qof maxaa ka qaylisan karnaa inuu fanaan yaa ka dad jecel fanaaninta yaa ka dad jecel cid ka dad jecel ma jirto maxaa ka qaylisan karaa hadda waxaa ka qaylisan karaa qajroofada ka banee halkii la soo gaadhay la hurayo ilaahay uu boog markuu Nairobi joogay wixii lagu lahaa aniga bika waa horta waa saaxiibaan haddana qofka qura fanaanka aan wax ka sheego waa isaga wadarka sigin Nairobi soo la googay ma danayo ma isiraahdo in waxaan ogay bika inuu laab lagu qaado leeyahay waxaan ku dhaado laab lagu qaado inuu leeyahay baan saad gartama isagoo burcaygu yimiyo aan wada joogno farxad ku wada nooray ba markuu saa u baxay aan heestiisii bedelo isagoo jidkiisa socdaan geli saad gartama laab lagu qaaday inuu leeyahay aniga haddaba taasi waa bike ninkan qaamahan diyaarsaday wal iska daahir waxay marsaa xalay fanaanin farabadan bay soo garaacay ilaa habeen hore fanaaninta ay soo garaacay نوري وحرها هسي سو سمي هستوا محادوا هس عنك وهذاك هس عنك هاي سو سمي هس عنك ضروري نضيبه سؤال احنا ما عرفت واحد عرفتنا كوبديس اللي كان افرت الصوت عنك قاضي انتقرنا بحي خميس وتا يبقى فنانين توين بركود برتا بدون سيبنا يراهن انتقر مرون وي مش هركو كجرا لو يا موقت يا خامت كجرت mar waxa ku jirtay heesaha jacaylka maanta rabbiga balaxam ka soo saaray cusub ee qofku dalkiisa uu go'aa ama meeshu ka soo jeeday uu go'aa markaan sidaan u hadlayo maanta siiro yara garanaysa waxaan hadlay yara ku niyadeeda kuma jirto wax qabyaalad leeyahay wax xumaan leeyahay Soomaalina anigu cid aan nacab oo dhibaato la nacab ma jirto xamar dhibaatooyin ka taagan habeen aan ka nixin qarax kasto oo soo sheegay aan ka nixin leeyna ma jirto haddaba maxaa meesha ku jirta anigu dadka aan sheegaya ee aan wax ka sheegaya imika aan maagaya aan caaya waa tiradooda haddii la wado inta showgaa burburisay iyo inta Soomaaliya joogtay ee xun marka la isku geeyo kun qof isku gaari maayo kun ka qof haddaba media adeegsanayaan waxaan ku waxbay saa u jacbrin dadkan sheegaya waa dadka Soomaali aan wax ka sheegaya ma jirto waxa aan jecelahay inaan Soomaalida la kala qoloqolayn fanaaniinta Soomaalida in la kala qoys laga kala dhigin oo la kala bahalayn ay fanaaniintu meel kasta karto inta uu qaldamay iyo inta uu saxan yahay oo waliba inta badan laba jibaarna uu saxan yahay waliba saas isku adkii qofka binaadamka hadii la qanjarofto oo garaas halka bika ku galmaan cawaale aadan maanta Soomaalidu xanuun iyo feras bay wada qabtaan way wada bukaanka ay tii waa fanaanka qura ay noo dhaxeeyaan uga aaminsan ee aan feras ka dhaxraacay ee aan isagoo hadlayo oo meel soo fariisto ka alaaray marka hargeysa jooga ay leeyihiin awaalan xumaan Djibouti damay sox Djibouti wadal dariskeena wadad walaalihayna wadad intaas oo sano ay kun oo sano daristaay wadadayna walaalnay wadadayna iskalo lama kala saari karo Soomaaliland iyo Djibouti saxaagatima wadadan weligood dhibaato ku geysan oo aan dhibaato ku soo aadin saxaagatima wadadan horuba inaad goosatay iyo inaad goosanin toona aan iyagu deem garanaysan kala hayno aan weligood ku oran hana goosan iyo goosatoona ku oran oo dhibaato ku hayo oo qadiyada dhibaato ku hayo dad qadiyad waxa ka mar waxa la hadlay dadka qadiyadu ay hayso marna waxa la hadlay dadka fanka xiisay hada tahay qof qadiyada hayso qadiyada dadka soo jeeda maaha mid labaad
fanaaniinteena waa tagtaa isbuu kusoo qoray meesha fanaaniinteena way tagtaa baasaboorreenu ka qaadanaa waynu tagnaa si Ismaaciil Cumar Geelle inoo soo dhaweeye ee kal iyo laabto waa nin fanka jecel Ismaaciil Cumar Geelle fanka jecel iska daa wax kale waxaad ka dareemaysaa fanka inuu jecel yahay waxa yaala sidadkii muusika ee la tumayay ayuu diraayo kolba keenaa kooxo waxaa ka dhisan baysa oo sadkooda musugu dhan yahay oo kooxa oo bayska ayaa ka dhisan mar walba Jabuuti oo weligeed ma weydo lagama isticmaalo muusigan halka qof taba fadhiyo lagama isticmaalo waxaa halkan idin soo dhigayaa Cawaalo martagayo intuu martagay in heesiisi dul loogu wato macaanka hadiyaabayso waa nin fanka jecel Ismaaciil Cumar Geelle haddaba waayahay Cawaalana waa nin aamusnaan badan dadkiisa iskaga dhex jira dadkiisa aan xumayn haddii miishaaraha xumaantu ay iska rugaan kii wanaagsanaayo kii kale baad ku rido wixii isku dhex geyso waxay waa awaali wey ee qof haddii lagaa xumeeyey waxa fiican dadka waxaana kala garanay si loo guuleystaan kala garanay buusha waxa yaqaana qofka markay dhibaato gaarsiin taa wax la yiraahdo dhibaato ay gulma ba imika dadka Nairobi showga BK kaga burburiyay laba jeer bay guuleysan kareen marka koowaad haddii ay intay BK u yeelaan soo dhaweeyaan gacmahaas u qaadaan ay rahan walaal maxaa ku cad maxaa ku qabo maxaa doonaysaa walaal wadagan maanta noo yimi halkii kaaga dhignaa showga oo hoteelada kala cabir lacagta ay xaasnimada ku bixinayeen hoteelada ku bixinayeen inay ku burburiyaan showga ku burburiyaan ay showga kaga bixiyaan soo dhaweeyaan albeerka qaaligeeyaan waxa ku showgiisa hal dabala u galaan hadhowna waliba lacag soo xabaariyaan qofku hadduu dameerkiisa qofku si kasta u dhintay haddii wanaag loo sameeyo u qajilaa haddaad ka aaminsaneed cusuri maantaas u qajili laa BK qof aad kaga qajilsiisana waxaad ula hadhay maba jira haddaabad kaga qajilsiisa qofka waxaad ula hadhay ma jiro uu qajil lahaa ugu yaraan hadday doonto qadiyadiisa Somaliland ha ku jirto laakiinse hadal xun oo dambe xabar aad xumaan u filataaba xabar uga soo baxday walaalahaygu odhan la dadkayga walaalaha dadkayga ila nool dadkayga nafsa ilaah buu odhan la saad gartay ma maalintaa gurul baa idin seegtay marka labaad ay idin seegteen waxa weeye showga kale markuu qabsaday ee uu la tegey inaa isla qabaysaano maalintaa u tagtaano haddii maalinta hore idinka dhacday war xaal iyo boolijiis qaado midhaxa way dhici jireen miyaw waxilaa weliga dhici jiray weeyo dadku isqarjafaan meel kastoo raggu joogay allaa shaydaan ku yaalla ka dhufaniyo inay yidhaahdaan BKna hal mid baa seegtayo qofku hadduu ku xumeeyo laga aamusaa waxaa nin hadal badan aamusnaan baa dishay halkaa mid baa seegtay isaga haddaba cawaaleynu marayni haddaba reer Somaliland idinka yaana idi seegin Cawaale sidii loo soo dhaweyn lahaa ee show lagu qaban lahaa miyaan ahay ninkii heestu qaaday fanaaniinta oo dhan isku soo wada qaar hore iyo qaar dambe shakhsi ahaanteeda waxaan aaminsanahay hees ka macaan oo Hargeysa heestu qaaday inay hees ka macaan jirto hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka bal inaan cusur ahayn isagoo Jabuuti u dhashay oo Jabuuti san ay leedahay ayuu Hargeysa ku leeyahay hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka miyaa la qabsaday lagu maxaa u tiri lama oran maanta Cawaale ma soo geli kartid Hargeysa dad kale akhrid baan leen war qajil oo wax dareen oo mid labaad Somaliland baa waa kan soo qoray Somaliland hadaan caayay cadeynteeda halkeen keena anaa ku qisaasayna cadeynta hadii la anaa ku qisaasay gurburaqaa keena waa la waxay raganimadu meel ciriiriye bay ku jirtaa inta ninkaas soo dhaweysaan oo Hargeysa keentaan sida waxa wax ugu qabataan sidii gobonimada lahayd ee lagu yaqaanay dadka ee Soomaali lagu yaqaanay ee waliba lagu yaqaanay maxaa tahay reer Hargeysa lagu yaqaanay sax gartay ma ee goobta ahayd wax soo showyada oo qabta hal yaabo wuxuu ka dhacay
Australia ka dhacay ma America ka dhacay dadku baras siman ha noqdaan $50 hadduu ilaa $5 waxay qof asxaabtaada ku soo shaxatay oo saamxaya sadadka u gala hadhow si qurux badan sababtay kaliya la sababtay isdaafiya war xumaantay dadka qaar qaateen qaadan adeerinta bugtana waxaad ilaahay ama Soomaaliya ha joogto ama Soomaaliland ha joogtay ilaaha hay'ad shaafi ma garad haddii reer Nairobi ay seegtay taas reer Hargeysa idinkiisa seegi cawaalaha la soo dhaweey bikana waa saaxiibkii waxaan leeyahay saaxiib adigana lagu qaldan adoo qaldantay qaladka lagu sameeyay ha badnaado waxaan leeyahay kelmadda aad tiri ee ah Soomaali hayga maqnaato raxmar hayga maqnaato dadka siyaasadii cusuriyiinta ee baaba ay silcayay bay saysaa ee hamiinka hurdada xitaa si fiican u galay masaakiinta xamar iskaga noole caadiga dadka shicibka isma haysaan kelmadana khaalid gelinaad ka bixiso ayaan ka rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh